wiilkan yar wuxuu soo qaatay biskoolada aabihiisa wuxuuna gashtay hal xabad wuxuuna u imaaday hooyadiisa oo ku hadlaysa taleefon wuxuu ku tijaabiyey nasiibkeeda wuuna ku riday laakiin xabadda way dhici weyday wuxuu ogaaday in nasiib leedahay oo ka tegey wuxuuna u tegey aabihiisa iyo saaxiibkiisa wuxuuna ku tijaabiyey inay ku dhacayso laakiin nasiib wanaag ayagana way ku dhici weysay oo wuxuu leeyahay nasiibkeeda ayaa aad u wanaagsan wuu soo baxaya wuxuuna aadaya bannaanka waxaana ka hor imaanaya nin boostoola ah oo dareefari ah wuuna ku tijaabinaya asagana kuma dhacayso wuxuu leeyahay aad ay u nasiib wanaagsan tahay wuu ka tegayaa wuxuuna tegayaa magaalada dhexdeeda faras boonbalaha ayuu fulaya xabadaha ayuu laba ka dhiganayaa isla markii dadka meesha maraas uu ku tijaabinaya waxaa imaanaysa gabadha farasta lahayd iyo aabaheeda wuu kusoo dejinaya farasta wuxuu leeyahay waa inaad kaga tagtaa meeshan gabadha ayaa farastas kale aabaha ayuu bilaabay isla markii inuu ku tijaabiyo nasiibkiisa laakiin asna nasiib wanaag kuma dhacayso aad ayuu ugu qoslaya aabaha wuuna kasoo tegaya cunuga wuxuuna imaanaya guriga oo biskoolada xabadaha dhan ayuu wada gelinaya 5 xabadood ayuu wada gelinaya isla markii waxayna tusayaa aabihiisa oo dharka ku aruursanaya boorsada wuxuu arkaya inay xabadihii maqan yihiin oo kartoon ku jiray kaartoonka ay soo qabanaya wuxuu arkaya inay eber yihiin aad ayuu u naxaya saaxiibkiisa ayuu weydiinaya yaa kala baxay xabadaha meeshan wuxuu leeyahay cunugeeda yar ayaa wada biskoolada isla markii hooyada waxay wactaa booliska xillada cunugaa soo raadiyay biskoolada xabada ku jira ayuu wataa saaxiibkiisa asaga gaara ay soo raacayaan way raadinayaan laakiin cunugu wuxuu kusoo laabanaya guriga isla markii naagta shaqaada ayuu wacaya wuxuuna ku tijaabinaya xabadaha ayagoo dhammaystiran laakiin nasiib wanaag intuusan xabadda ku ridin waxaa kasoo gaaraya aabihiisa oo biskoolada ugu dhufanaya koofidda wayna qaloocanaysaa xabadda kuna dhacayso